go'aankan waxaan u arkaa in wixii ay doonayeen ay ka qaylinayeen beelaha daafuhu uu ka soo horjeedo baan aaminsanahay. waxa aad ka qaylinayseen ee uu ka soo horjeedo maxay yihiin? waxa weeyaan saami qaybsi rasmi ah ama awood qaybsi rasmi ah oo dowladnimada Soomaaliland beelaha daafuhu ay sheerkoodii ka helaan ayay doonayeen. tii marka waxayna ka bilaabanaysaa golaha wakiilada iyo golayaasha oo ugu horeeyo taa golaha wakiilada hadda waxa lagu fadhiyaa 23 beelaha daafuhu dhan leeyihiin iyo inta kale oo dhan oo beesha dhaxalaan sheerkoodii bay doonayaan markaa oo taa golaha wakiilada imika doorashada golaha wakiilada beelaha daafuhu way ka soo horjeedaan waxayna uga soo horjeedaan ilaa saami qaybsi rasmi ah oo kuraasta sheerkay ku leeyihiin ay helaan inaanay doorashada ka qayb galeen. sidee marka lagu heli karaa saami qaybsiga rasmiga sidee lagu heli karaa? waxa lagu heli karaa tirakoob rasmi ah haddii la sameeyo oo dadka si rasmi ah loo diiwaangelin rasmi ah la sameeyo ama in beelaba wax lagu qaybsado labada habba waa compromise beeleed waa lagu heshin karaa tan kalena waa lagu qanci karaa labada qodob bay ku xanta. laakiin adigu waxaad xildhibaan ku tahay waa sharciga marka haddii aad sharciga diidan tahay oo go'aankii maxkamadda aad ka soo horjeedo soo taa uma muuqato in sharciga aad baal marayso? maya sharciga ma diidani laakiin haddii go'aanka maxkamaddu ay soo saartay ay sidii hore lagu galo haddana ay soo saarto beelihii daafaha xuquuqdoodii bay duutiyaysaa baan aaminsanahay. maxkamaddu waxay go'aamisay inaanay shardi ahayn in doorashada tirakoob lagu galo marka maxay tahay adinku sababtaad ugu dheggan tihiin? wax weeyaan Soomaaliland beeshii dhexe oo kulasteedu intaa tahay beelihii kalena ay intaa tahay ma taasay markaa waxa sharci noqonaysa beelaha kale intaa xuquuqdo ma yeelanayaan baa sharci noqonaysa markaa. xukuumaddu waxay leedahay doorashada waqti kooban ayaa ka harsan xilligan suurtagal ma ahan in tirakoob la qabto soo taa idiima muuqato? way noo muuqataa laakiin barnaamijkani muddo intee leeg buu soo socday tan iyo 2000kii tan iyo 2005kii go'aanka ay maxkamadda dastuuriga 2005 soo saartay weli wuu taagnaayaa soo dowladnimadu inay xal u hesho waxaan ahayn mar horeba ma maalinta bil iyo laba ka hadhay baa waqtigii baa nagu kooban haddana la odhanaya way wax adag weyn taas. haddii hadda tirakoob la qabto maxaa u soo kordhaya ayay kula tahay dadka gobolka Awdal ee aad xildhibaanka u tahay? in alle inta wax tabanaysaba wax kasta u soo kordhay wax lagu kala qancay wax lagu kala qanco ayay noqon karaysaa. in doorashada kadib tirakoob la sameeyo maxaad ku diidan tihiin? wax weeyaan markii hore la yiri wax weeyaan markan un baa saa lagu gelayaa baa berigii hore lagu soo dhaafay wax weeyaan 15 sanadood ee 2015 ka dambeysayna maalin walba intaas way taagay maanta haddana haddii sidaa lagu gelayaa la yiraahdo ila damaanad qaadaya in barnaamijkaasi xalismayo waxay ka dambeeyay markaa. xildhibaan Ducaale waxaad ka mid tahay golaha wakiilada Soomaaliland xaaladana si wanaagsan ayaad ula socotaa dawladdiina waxa ay leedahay doorashada ka hor lama geli karo tirakoob oo xitaa mararka qaar waxa la leeyahay waxa laga cabsi qabaa in doorashada ay dib u dhacdo oo arrintaasi ay keento dib u dhac doorasho marka waxyaabahaas oo dhan markaad eegto soo ma habboona in xaaladda aad dejisaan oo aad u aragtaan in doorashada la galo kadibna la isugu yimaado wixii tirakoob ah iyo wixii saami qaybsi ah qaabka looga heshii karo? wax weeyaan waxaaba haddii daacad laga yahay 6 bilood bay tirakoob ku dhammaan karaya haddii rasmi loogu fadhiisto at same time barnaamij laga guurteeyo waqti kooban baa lagu dhammayn karaya waxaas oo dhan marka waxba la diidan yahay baad moodaa inaan waxba la isla ogolayn baad moodaa laakiin barnaamijku haddii xal ka gaala la isla haddii tirakoob la galayo iyo haddii xal kale ka gaala la isla yahayba waqti waa loo haystaa waana la dhammayn karaya.